Assalamu alaikum. Alhamdulillah. I think today's meeting was great. Waqtiyan. I like the whole title Waqtiyan. Change other people's idea, change other people's mindset. We change the new generation or the ongoing generation of how they think about the world, how they think about our country in Somalia. So I hope there's a lot of good things that will come. And there's a lot of things that I learned today. I learned about other people's visions and other people's desires, other people's dreams. We all have dreams. So I hope everything will be great. Hi, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waxaa waaye Amiin. Maanta waxaa ka soo qayb galay barnaamijka la yiraahdo waa waqtigeena oo Mr. Cumar oo inoogu yeeray aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxyaalo badan oo aan ka bartay waxa ugu weyn hadda aan ka bartay waxa weeyaan baraarug anagii dhalinyarteeni aan baraarugno inay tahay waqtigeena inaan joogno waqtigeeni inaan maaragtay wax alaabo wixii oo dadkii hore sameeyeen inaan sax. So yeah, I would like to take a moment and say thank you very much to Mr. Umar having me here. I really do appreciate it. Hi, my name is Idil, and maanta waxaan kasoo qayb galay It's Our Time waa waqtigeena. Markii horeeto dib u imaanaan fahansan wuxuu ku saabsan yahay iyo lost generation macnaheedu waxay tahay laakiin hadalka markii oo si oo dib looga baahiyey lost generation inay tahay maxaa lahaayo inaysan ahayn ka dad kala firfirnismay laakiin maskaxiyan ahaan inuu waxaa qof kasto oo idea oo naga maqan tahay inuu wadankeena meesha loo laabanayo inay tahay oo meesha u baahan inuu wax ku qabsano uu ka fikirma sidaa horumar la gaarsiin laheen. Marka maanta halaasa ka faa'iiday barnaamijka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Ayuub Maxamed. Maanta waxaa ka soo qayb galay waqtigeena initiative oo qabanqaabay walaalkay Umar Cawaale. Initiative-kan wuxuu ahaa in youth-ka lagu dhaliyo fikradda wadankooda waxay ka qaban karaan, waxay ku soo kordhin karaan. Alxamdulillah maanta session-keena wuxuu ahaa perfect. 6 qof oo masha Allah waana discuss gariyay about bedelka ay ka bedelayeen wadankeena Soomaaliya inaad ugu noqono wadankeena dhisno. Insha Allah waxaa filayaa adigaas naawanaya in fikradda ku soo dhacdo aana sii qaadid walaalkaan Soomaaliya aad u sheegtid بإذن الله تعالى ودنكينا هياديسن أسبوعي معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaa iskugu imaanay inaan ka wada hadalno wax guud mise dan guud oo nabad u qasaasan dhalinyaro ahaan. Run ahaanta iskugu imaanay dan gaar ah waxaan ka hadlaynay inaan maanta fahanay in la gaaro waqtigeeni inaan maanta u baahannahay maanta inaan maskaxdeena iyo anaga isfahno dhalinyaro ahaan. And it's very good initiative today that I get to learn other stories. I get to know more people. I get to make a connections also. And the most important part that we need to understand as a Somali youth, and I'm sending here a message to the leaders either in a private sector or in a government sector, that the time has come that the youth have to be in every sector of that country. There should be the change. We as the youth of Somalis, we deserve a better future, and also we want to compete with the other societies and the rest of the world, and to show that a Somali person can do it. Thank you so much.